gabadhan waxay isku dayday inay biyo ku shubto dheri laakiin marnaba ma uusan buuxsamin. waxay geysay tubada biyaha si ay biyo uga buuxiso. markii ay hurdada ka soo toostay waxaa soo wacay maamulka dhismaha waxaana loo sheegay inay isticmaashay 100 tan oo biyo ah habeenkii xalay ahaa. dhanka kale xero ciidan oo qadiimi ah isla dherigii wuxuu si joogto ah u soo saarayay biyo. tani waxay farxad weyn u ahayd askartii biyuhu ku yaraayeen. waxay si qalad ah ugu maleeyeen inay tahay roob samada uga timi. markii ay gabadhu xirtay tubadii biyaha dherigii wuxuu noqday mid maran taasoo aad ula yaabtay. waxay ku riday cunto hadaaga ah cuntadiina si lama filaan ah ayay u luntay. adduunyadii hore cuntadii ayaa ka soo muuqatay dheriga. askartii ayaa si farxad leh u cuntay. si ay ugu mahadceliyaan taliyihii ayaa qoray warqad mahadcelin ah dabadeedna dab ayuu qabadsiiyey oo ku riday dherigii. gabadhii waxaa keliya oo ka soo gaaray qiiq madow oo faro badan. markii ay aragtay arrintan aad ayay u xanaaqday. waxay dherigii ku wada riday cuntooyin wakhtigoodu dhacayay. ma aysan ogeyn in tallaabadani ay si weyn u farxad gelisay askartii. hase yeeshee cuntadani kuma filnayn inay quudiso dadka iyo askarta magaalada. sidaa darteed taliyihii ayaa warqad u qoray gabadha isagoo ka codsanaya caawimaad. markii ay warqaddii akhrisay gabadhu waxay ogaatay in dherigu ku xiran yahay adduunyadii hore. warqaddu waxay sheegaysay in dalkaasi ay ku noolaayeen 800 oo kun oo qof. gabadhu ma aysan lahayn awood ay ku caawiso dad inta leh. iyadoo arrintan ka welwelsan ayaa dherigii si lama filaan ah u soo tufay wax ku dhacay gabadha. waxay ogaatay in wixii uu dherigu soo tufay ay ahaayeen dahab. ilbidhiqsiga xigay dherigii wuxuu bilaabay inuu soo saaro dahab iyo lacag aad u tiro badan. qolkii oo dhan waxaa ka buuxsamay hanti. gabadhii waxay heshay koob qamri oo qadiimi ah. waxay u qaadatay dukaan lagu iibiyo alaabta qadiimiga ah. khabiirkii ayaa isla markiiba aqoonsaday in koobku yahay mid aad u qiimo badan. wuxuu isla markiiba ku dalbaday 2 bilyan oo dollar si uu u iibsado. gabadhii aad ayay ula yaabtay oo hadal way ka soo bixi waayeen. intaa kadib gabadhii waxay lacagtii u qaadatay suuqa qudaarta. waxay ku dhawaaqday inay rabto inay iibsato dhammaan suuqa qudaarta. ugu dambayntii gabadhu waxay diyaarisay cunto aad u fara badan. waxay go'aansatay inay quudiso 800 oo kun ee qof ee ku nool adduunyadii hore iyadoo adeegsanaysa dadaalkeeda.